tacliin sare iyo shaqo wanaagsan waxa ay qayb ka yihiin horumarka dhalinyarada. Marka dhalinyarada fursado shaqo ay ka waayaan dalkooda, waxa ku yimaada niyad jab iyo qalqal. Goobaha waxbarashada magaalada Hargeysa ayaa haddaba ku dadaalaya in ay ardayda ka caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen tababaro dheeraad ah. Cusmaan Cabdi Xasan oo dhawaan booqday Hargeysa ayaa warbixintan ka diyaariyay. Shaqo la'aanta haysata dhalinyarada waa mid aad u sarreysa. 75% dhalinyarada wax shaqo ah ma hayaan, sida barnaamijka horumarinta Somaliland uu sheegay. Dhalinyarada qaar way tahriibaan iyagoo nolol wanaagsan raadinaya, waxaana ka mid ah kuwa tahriiba arday wax baratay. Shaqooyinka la heli karo ma dabooli karaan baahida jirta. Marka ay ardaydan tacliinta dhammeeyaan, waxay u baahan yihiin khibrad ka caawisa helista shaqooyinka ay doonayaan. Jaamacadaha gudaha waxay xoogga saarayaan ardayda inay siiyaan waxa ay u baahan yihiin si aysan ugu guuldaraysan xaqiiqda suuqa ka jirta. waxaanu sameynay markaas center mentorship ah marka ardaygu markuu ka baxo suuq jaamacadii ka baxo uu shaqo waayo normally isagoon u diyaarsan inuu even CV fiican qori karahayn ama codsi shaqo fiican aan qori karahayn buu ka baxaa jaamacadda. marka ay yimaadaan markay ka baxaan jaamacadda waxaanu sii siinaa amba ay noo yimaadaan iyagoo balaa shaqo noqday waxa centerkaas ay yimaadaan waxa la siiyaa tababar baa la siiyaa sidii CV fiican u sameyn lahaa career planning baa loo sameeyaa. Qaar ka mid ah dhalinyaradan shaqadoonka ah way ku adag tahay inay degdeg shaqo ay u helaan gaar ahaan nooca ay doonayaan. Qaarkood waxay la yimaadaan qorshooyin ay ku maareynayaan mustaqbalkooda shaqo. Waan waxaan isleeyahay san doonayna practical meelaha ma inta temporary ka sii yar shaqeeyo aan hadhowna ka tago waa inaan experience ka qaato. Experience markaan leeyahayna waxaan noqonaysaa markiiba shaqo helo. shaqada ka bacdi marka raadsado hadii shaqo ay suurtagali weydo inaan business bilowdo. Inta badan ardayda wax baratay ee shaqadoonka ah waxa sugaya suuq uu tartan ka jiro oo ay shaqaale ajaanib ah kula tartamayaan. Haddaysan tayo dheeri ah ama khibrad gaar ahna la imaan, waxay la kulmayaan niyad jab ku kalifa in ay waddanka isaga hayaamaan. Iyadoo dhalinyarada gudaha ay haysato shaqo la'aan, ayay shirkadaha qaar waxay keensadeen shaqaale shisheeye oo leh xirfadaha ay u baahan yihiin oo gudaha dalka aan laga heli karin inta badan. Waxay ii sheegeen in ay shaqooyin jiraan, balse dhalinyarada laga doonayo inay la yimaadaan dadaal iyo rabitaan. waxa qof kastaba isagu wuxuu shaqaystaa buu leeyahay. qof meel iska jiifa oo aniga waxaasaan doonayaa ma jiro. laakiin qofku waa inuu dadaal iyo saci u sameeyaa si uu guusha doono u gaaro. macnaha qofka bini'aadamka sacigu dadaalo bay ku xirantahay noloshiisa. laakiin haddii shahaadaa sitaa meel aan shaqo tagana ma hayo. kuwa Lahore ka imanaya ama kuwa ka imanaya Bumbi ama kuwa ka imanaya Dakar ama kuwa ka imanaya Mareykanka maxay halkan u imanayaan hadii shaqada ka jirto. Khibrad shaqo waa arinta ugu weyn ee inta badan hortaal kuwa shaqadoonka ah ee aan magaalada Hargeysa kula kulmay. Su'aashuuse waxay tahay sidee taas wax looga qaban karaa yaase laga doonayaa inuu dhalinta gacan siiyo. Cusmaan Cabdi Xasan, BBC, Hargeysa.